kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada aan idila wadaago war degdeg ah oo ka imaanaya gobolka Sool Garaad Jaamac Garaad Cali iyo ciidamo culus oo hogaaminayo ayaa goordhow waxay ka ambabaxeen gurigii ay ka deganaayeen gudaha magaalada Laascaanood waxayna ku wajahan yihiin jiidaha gobolka Sanaag wararka iyo macluumaadka la helayo waxay tilmaamayaan in Garaad Jaamac Garaad Cali uu siinayo ciidanka amar guud oo ah inay ciirgaabo weerari karaan saacad walba waxaan kaloo ku soo gudbin doonaa beesha Xasan Ugaas ee dhulbahante oo hub iyo gaadiid dagaalo culus goordhow ku wareejisay Cabdiqaadir Firdhiye haddaba hubkaasi muxuu iskugu jiraa muxuu u goyn karaa maamulkan curdunka ah ee waqooyi bari iyana waan kula wadaagi doonaa laakiin hadday tahay markii kugu horeysay nagu soo biiro oo subscribe channelkan waxaad heli doontaa wararka warbixinada aan mar walba halkan ku daabacno soo dhawaada saaxiibayaal qodobkeena ugu horeeya ayaan dabcan ku bilaabayaa Garaad Jaamac Garaad Cali garaadka guud ee beelweynta dhulbahante garaadka guud ee maamulka waqooyi bari iyo ciidamo culus oo wato ayaa goordhow waxay ka ambabaxeen gurigii ay ka deganaayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ku dhawaad 26 gaadiidka Cabdibilaah loo yaqaano oo ay askar hubeysa saaran yihiin ayuu garaadku wataa ujeedada aan helnay ama ujeedada aan ogaanay ayaa waxay tahay in Garaad Jaamac Garaad Cali uu tagi doono duleedka magaalada Cerigaabo halkaasna uu haadima sharafeed kula leeyahay qaar ka mid ah isimada dhaqanka beesha Warsangeli markii la wada hadlo oo salaan sharaf iyo haadimada laga wada qayb galo kadibna Garaad Jaamac Garaad Cali waxa laga yaabaa inuu ku dhawaaqo amar labaad oo ah dagaalka gala yacni Cerigaabo hal la qabto waa sheekada ugu weyn ee maanta sida weyn loo hadal hayo haddaba in ciidamo inta la ee Garaad Jaamac Garaad Cali ay hore iyo gadaal ka galbiyaan oo ay geeyaan gobolka Sanaag ayaa waxay bixinaysaa fariin kale oo cajiib ah macluumaadka hadda aan helayno ayaa daawadayaal waxay tilmaamayaan in fariintan ay tahay fariin aan innaba caadi ahayn oo dhowrkii saac la soo dhaafay si weyn baraha bulshada loogu baahiyay xubno saraakiil qaarkood oo aan la hadalay si aan wax uga weydiino dhacdooyinkan waxay tilmaameen in Garaad Jaamac Garaad Cali uu isagu iskiid u go'aansaday inuu ceergaabo qabashadeeda dhinac ka yeesho toddobaadkii la soo dhaafay waxaan idiin sheegay inay isgacan qaadeen Cabdiqaadir Firdhiye iyo sidoo kale Garaad Jaamac Garaad Cali iyo sidoo kale isimada dhaqanka kale waa la wada hadlay waa la iscafiyay wixii markaasi la isku hayeen waa la iska dhaqay hadda xaajadu marka waxay tagtay in gunaanadka la guda galo iyo waxyaabihii kale ee la isku hayay in markaasi dabcan si hoos looga wada hadlo xubno aan la hadalnay maamulka waqooyi bari ah qaarkood waxay goordhow ii sheegeen in ay si weyn oo la yaabeen in Garaad Jaamac Garaad Cali uu iskis u go'aansado inuu ceergaabo qabashadeeda uu dhinac kaga yeesho dabcan beesha Bahar Same oo si gaar ah uga soo jeedo Garaad Jaamac Garaad Cali ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin beesha Bahar Same qabashadii ceergaabana aysan door fiican ku lahayn dhismaha maamulka waqooyi barina door fiican aysan ku lahayn laakiin hadda ay isku muujinayaan inay ka qayb qaataan qabashada magaalada Cerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag Cerigaabo waa xudunta ay dad badan aaminsan yihiin inay noqon doonto halka sida weyn loogu loolamo marka laga hadlayo gobolka Sanaag wareedii aan goordhow la hadalnay ayaa waxay tilmaameen in Cerigaabo qabashadeeda ay ka horeyso in marka hore la isku dubirido hal goob la iskugu geeyo dhammaan ciidanka maamulka waqooyi bari kadibna ciidankaasi si wada jir ah ay dagaalka u galaan khubarada arrimaha la socota waxay leeyihiin Garaad Jaamac Garaad Cali iyo siyaasiyiinta kale waxa ka maqan ama ka hoos baxsan hal orah oo ah in ay horta ciidanka mideeyaan xuduuda ciidan ee maamulka waqooyi bari markii la mideeyo oo hal goob laga wada dhigana waxay dad badan aaminsan yihiin in ciidankaasi aan la jabin karin laakiin hadda in Garaad Jaamac Garaad Cali uu dhinac ciidan ula baxo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciilna dhinac uu ciidan ula baxo beesha Naaleeye Axmedna ay dhinac oo markaasi ay ciidan ula baxdo dad badan waxay aaminsan yihiin in kali aan lagu qaban karin magaalada Cerigaabo laakiin xuduuda beesha dhulbahante hadii la isku geeyo dad badan ay aaminsan yihiin in la qaban karo magaalada Cerigaabo oo ah xarunta gobolka Sanaag xubnaha la hadalnay qaarkood sidoo kale waxay tilmaameen in Garaad Jaamac Garaad Cali uu iskis u go'aansaday in uu qayb weyn ka qaato qabashada Cerigaabo dabcan ninkan odayga ah ee la yiraahdo Garaad Jaamac Garaad Cali wuxuu ku suntan yahay dagaalkii Laascaano eragii ahaa dagaalka gala taas oo si weyn ay baraha bulshada aad ugu faafiyay
markii dambena dabcan loo fasirtay in garajaamac garaad cali uu yahay nin mabda iyo mowqif leh wixii uu ku dhegana ay adag tahay in laga fujiyo sababtoo ah madax adayga iyo dhiiranaanta iyo adayga wuxuu ka raacay aabihiis cali maxamed xogtan helena ayaa waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saaci lasoo dhaafay la dareemay culaysyo weyn oo dhanka amniga ah oo ka imaanaya meelo kala duwan taas oo loo arkay inay tahay fariin si weyn markaasi baraha bulshada loogu baahiyey oo la leeyahay garajaamac iyo ciidamadiisu dabcan xilligan waxay ka qayb qaadan doonaan qabashada magaalada ceergaabo ceergaabo hadda waxay la circiraysaa ciidanka somalilan oo gudaha magaalada ku sugan kuwa bannaanka magaalada ku sugan kuwa darafyada kala duwan ee magaalada ku sugan ciidankii beesha habar jeclo oo laftirkoodu la leeyahay gurmad ahaan ayay ceergaabo u tegayaan kuwii ciidankii somalilan dhammaan ciidamadaasi marka laysku dardaro waxay tani ku tusinaysaa in ceergaabo xilligan ay la ceerceerayso ciidamo tira beel ah oo aan la ogeyn xaaladoodu halka ay dabcan markan ku dambayn doonto waxay ku soo kordho saaxiibayaal wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagayaa markana beesha xasan ugaas ee dhulbahante ayaa la soo warinayaa inay markan qaadayso tallaabooyin yaab leh beesha ayaa la sheegay in ay si weyn ula dhacsan tahay habka cabdiqaadir firdhiye uu maamulka ku wado xasan ugaas waxaa la sheegay beelahooda kala duwan ee hoostaga dabcan beeshaasi ee faracyada hoose leh inay ciidamo iyo gaadiid dagaal ay doonayaan in ay cabdiqaadir firdhiye ku gacan siiyaan si uu uga qayb qaato dagaalka ka dhanka ah somalilan iyo puntland xasan ugaas waxaa ka soo jeeda dabcan madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka puntland eliyas lugator baran ayuu hadda ka hortegay dhaharna waa uu tegey wuxuu beeshiisa xasan ugaas ka dhaadhicinayey inaan haba yaraatee 1,000 iyo 1 ciidan aan lagu taageerin cabdiqaadir firdhiye laakiin hadda waxaad moodaa in warkaas uu dhicisoobay warkaas uu noqday hal bacaad lagu lisay maadaama wax walba ay hadda soo gabagaboobeen oo ay noqdeen hal bacaad lagu lisay xubnahan la hadalnay qaarkood waxay yidhaahdeen cabdiqaadir firdhiye si dhow ayuu ula socdaa dhaqdhaqaaqyada halkaasi ka socda wuxuuna markaasi xubno golaha wasiiro ah oo tiro badan uu u ballan qaaday beeshii keenta hub iyo gaadiid dagaal dabcan maamulka cabdiqaadir firdhiye hadda qorshayaasha ay wadaan ayaa wuxuu yahay qorshayaal cajiib ah oo la yaab leh tusaale beelaha hoose ee dhulbahante beel walba waxaa lagu qanciyey ama lagu amray inay keenaan ku dhowaad 6 gaadiidka cabdibilaha loo yaqaano iyo 16 askari qoryahooduna ay markaasi u diyaarsan yihiin si maamulku u yeesho ciidamo xoogan somalilan iyo puntlandna maamulka looga difaaco beeshii ugu horreysay ee warkaasi adeecday waa xasan ugaas gaadiidka ay keeneen waa 26 gaadiidka cabdibilaha loo yaqaano iyo askar hubaysan waxaana wararku ay sheegayaan in gaadiidkaasi intiisa badan dabcan uu ka qayb qaadan doono sida ay xogaha iyo wararku tilmaamayaan sidii markaasi beeshu ay u qaban lahayd magaalada ceergaabo isla markaana berri ka maalin ay ugu xifaaltami lahayd uguna dhiiranaan lahayd ka qayb qaadashada magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag isku soo wada duubo arrimahan markaad eegtid waxay dad badan ku tusinayaan inay jirto cabsi ah in magaalada ceergaabo dhowr jiha laga weeraro beelaha dhulbahantahana xilligan waxayba u diyaarsan yihiin qabashada magaalada ceergaabo ee xarunta gobolka Sanaag beelaha hoose ee warsangeliguna iyaguna waa diyaar suldaan siciid ayaa dhawaan tagi doona magaalada laascanood ama magaalada ceergaabo wuxuuna ku dhawaaqi doonaa in ceergaabo ay hoos tagto maamulka la yiraahdo waqooyi bari isla markaana ay magaaladaasi ka tirsan tahay maamulka waqooyi bari ee saldhigiisu yahay magaalada laascanood hadda dhaqdhaqaaqyada xoogga leh ee ka socda meelo fara badan oo ka mid ah gobolka Sanaag ilaa gobolka Sool waxay ku tusinayaan sida ay beelaha hoosaadka dhulbahantuhu xilligan ugu dhiiran yihiin in maamulka la dhameystiro dabcan dastuurka maamulka waqooyi bari waxaa ku yaala in ceergaabo iyo laascanood laasqoray ay dhammaan yihiin maamulka waqooyi bari sababtoo ah Sool iyo Sanaag ayay labaduba ka tirsan yihiin haddii aad dib ku xasuusiyana waxaa jirtay aragtiyo ay dhowr jeer soo jeediyeen qabaa'ilada dhulbahantaha oo la xiriira in ceergaabo ay noqoto magaalo xudun u noqota magaalooyinka la qabanaya ee gobolka Sanaag tii oo ay dheer tahay in Puntland iyo Somaliland xilligan ay u tafaxaydanayaan oo juhdi xoog iyo xeeladba ay ku bixinayaan
burburinta dhismaha maamulka waqooyi bari walow dhulbahantaha laftarkiisu uu doonayo inuu iska difaaco haddii duulaan lagu soo qaado ama la beegsado xubnaha muhiimka ah oo garaadadu ay ugu horeeyaan. guud ahaana saaxiibayaal wixii ku soo kordha wararkan idin dulmaray waxaad kaga bogan doontaan wararkeena dambe haddii tahay markii kuugu horreysay nagu soo biir subscribe channelkan waxaad la socon doontaa wararka warbixinada aan mar walba halkan ku daamacnay. soo dhawow.